wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ka daafurtay xaflad lagu iba furayo habraacyada ilaalinta tayada dhismayaasha dalka laga hirgeliyo iyo habraaca diiwaangelinta shirkadaha dhismayaasha iyo injineerada ka howlgala Soomaaliland si sare loogu qaado tayada iyo kor u qaadista dhismayaasha dalka oo ay ku hogaaminayso wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Soomaaliland. Xafladani lagu daafurayay habraacyadaasi oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada, mas'uuliyiin kale iyo sidoo kale injineerada wasaaradda, mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda, agaasimaha guud ee wasaaradda iyo qaar ka mid ah shirkadaha dalka. waxaan ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay injineerada iyagu diyaariyaha habraacyada lagu ilaalinayo tayada dhismayaasha dalka. waan halkan ku shaacino labadii habraac oo ah habraaca dhismaha, tayada dhismaha iyo habraaca shirkadaha iyo injineerada dalka. labadan habraac waa laba habraac oo muhiim miisaan u leh qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. farsamadii iyo aqoontii iyo tiknoolajiyadii aan u baahnayn inaynu dhisno isbitaal, inaynu dhisno jail, inaynu dhisno school, inaynu dhisno library, standard nooceeya, halbeeg nooceeya, habraac nooceeya ayaynu raacaynaa. inagoo aaminsan maanta in shirkadaheennuna ay diyaar u yihiin farsamo ahaan, aqoon ahaan iyo tayo ahaanba inay dhisaan. marka halkan waxaynu joognaa labada habraac oo aynu ku nidaaminayno howlaha dhismaha ee wasaaraddu u qaabilsan tahay qaranka. waxaan oran lahaa bal in ay gobolladana ka bilaabaan in bearing capacity-ga laga soo saari karo gobollada, in quality control-ka localka lagu jabin karo gobollada, xafiisyada howlaha guud ee gobollada ku yaalay. anu markaan tagay 3 qof 4 qof baa joogta, dad aqoon u leh in loo abuuro xafiiskiina loo sameeyo meel lagu tijaabiyo caradan ama culayskii lagu soo saari karo blogina. intaasi kadibna waxaa halkaasi hadallada ka daba maray agaasimaha guud ee wasaaradda iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda, waxaana ay dul istaagan muhiimadda ay leedahay in habraacyo lagu ilaaliyo tayada dhismayaasha laga hirgeliyo dalka ay wasaaraddu soo diyaariso. maanta waxaa farxad noo ah haddaanu nahay wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta inaanu daafurno labada habraac ee kala ah habraaca shirkadaha dhismaha iyo injineerada iyo habraaca ilaalinta tayada dhismaha. ka wasaarad ahaan howl aanu soo wadnay muddo sanad ah ayaanu maanta halkan ku soo bandhigaynaa, ku daafuraynaa, idinkuna goobjoog iyo marag nooga tihiin. sidaynu isla wada ogsoonnahay dalku hore uma lahayn nidaam, xeer, halbeeg, habraac midna lagu ilaalinayo dhismayaasha. sidaas lamida muu lahayn dalku hage ama xeer nidaamiye lagu hagaayo tayada dhismaha. dhismayaashu waxay dhisayaan, shirkadaha dhismuhu waxay dhisayaan iyo tayadooda wax lagu ilaaliyo hore umaynaan lahayn. waxa maanta suurtagal inoo noqotay falilaahi alxamdu inaynu isla meel dhignay, isla lafagurnay, qornay, fulinayno habraacyadii loogu talagalay in lagu ilaaliyo dhammaantood shirkadaha dhismaha, injineerada hadday tahay iyo dhismaha laftiisaba. howlaha guud u tahay maanta soo bandhigidda labadan habraac ee qaranka qiimaha weyn u leh guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. sharaf weyn bay u tahay inay maanta halkan lagu eegleelo curinta iyo samaynta habraacyadan. runtii nolosha bini'aadamku meel kastoo ay suurtagal ka tahay dhismayaashuna suurtagal bay ka yihiin. sidaa awgeed maadaama ay isku xidhan yihiin noloshii iyo dhismihii oo aanay kala maarmaynin, waxaa lagama maarmaana in la helo habkii iyo hanaankii loo mari lahaa adeegsashada ama dhismayaasha ama jaangoyntooda. wasaaradda howlaha guud iyadoo gudanaya waajibaadkeeda dastuuriga, iyadoo ka duulaysa ahmiyadda weyn ee dhismayaashu ay qaranka u leeyihiin, iyadoo fulinaysa siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhismayaasha iyo khibradda injineerada, iyadoo muujinaysa mas-uuliyadda ka saaran dhismayaasha iyo shaqada maalinlaha ee qaranka u hayso. waxaynu maanta halkan ku soo bandhigaynaa labada habraac ee sharaxaadda dheer laynaga siiyey. qof kastoo madasha fadhiyana iyaga oo lagu soo saaray faafintii rasmiga uu labadii biyuba ay hortiina yaaleen si aad uga bogataan oo aydin u akhrisataan, isla markaana hadhow ugu dhaqmi kartaan ama uga jawaabi kartaan macluumaadka ay xambaarsan yihiin. dhankoodana waxaa halkaasi iyaguna hadallada iska daba maray oo
bogaadiyey wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta wasiirada iyo sidoo kale mas'uuliyiintii kale ee ka soo qayb galay. waxaa jirta country corka amba building corka waa wax muhiim ah imiga tusaale ahaan RBA ama road waxa jira muxuu ahaa kood baa jira oo wadanku leeyahay waxaad ogaataan adduunyada wuxuu la soo kala ergistaa waxaan aashito amba BS British corka amba laga soo ergistaa laakiin shirkadaha ama heshiiska la galaa wuxuu hadba gacanta saarayaa inta ugu badiso imiga tusaale ahaan birta la isticmaalayo amba reedka la isticmaalo waxa la isticmaalo heshiida la isticmaalayo isagu wuxuu doonayaa inkastoo supersede gareynayo wixii contractka lagu galay hadda wuxuu doonayaa markaas isaga tay ugu badiso cidii ku soo dabaalasay iyo xeerka ku soo dabaalayay maanta kol hadii la helay waxaan rajaynaynaa wasiir in halkaasina uu qarankana uga soo hoyo doono faa'iido badan shaqaale badan la qaadan doono. wasaaradda howlaha guud ay noo sameysay waa arrin aad iyo aad loogu farxo dhismuhuna waa qayb noloshii ka mid ah runtii marka habraacan ay noo soo gudbiyeen waa in sidiisa lagu fuliyo oo aynu qaadano ta kale had goor marka aynu magaalo ku noolahay ee deegaan aynu ku noolahay waxaan odhan lahaa marka ugu horeysa waa in meel kasta dhismo kastoo la sameynaya waxa environmental impact assessment la sameeyo oo ay xafiiska ay noo sameyso wasaaradda howlaha guud. waxaynu fahamsanahay haddii jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeedu yahay 4 milyan in qof kasta oo ka mid ah uu u baahan yahay inuu ku noolaado hoy maadaama ay halbowle u tahay markaa qofka bini aadanka ahi inuu ku noolaado hoy oo nabadgelyo kaga soo tooso waxay noqonaysaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee halbowlaha oo ah ee mas'uuliyaddu ay ka saaran tahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laamaheeda kala duwan oo ay u xil saaran tahay wasaaradda howlaha guud inay badbaadiso badqabka nolosha iyo isku halaynta hoyga lagu nool yahay oo wasaaradda in loogu hambaliyeeyo mudan inay soo saaraan laba habraac oo labadaba lagu maamulayo dhismaha iyo ciddii ka shaqaynaysa hadday noqoto injineero gaari hadday noqoto shirkadaba alleena hambaliyo shaqooyin baad qabateen wasaarad ahaan waana doorkii laydinka filayey inaad soo saartaan shuruuc iyo xeerar ama siyaasada iyo habraacyo lagu maamulayo qaybta dhismaha iyo industrigaas. ugu dambeynna wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Somaliland ayaa isaguna munaasabada ka hadlay waxaanu ka hadlay muhiimadda ay u leedahay wasaaradda iyo guud ahaanba dalka in la diyaariyo habraacyo lagu ilaalinayo dhismayaasha dalka. ujeedadaynu maanta isugu nimi waa la sheegay waa lagu celceliyey presentation baa lagu soo bandhigay waliba wasaarad ahaan waxaanu ku celcelinay waa markii u horeysay faanaga ma ahayn murqaanka nala jiiday kulli hadday tahay markii ugu horeysay iyo mar dhexaba waa shaqadii naloo diray wallahi shukran cala alwaajib inta haddaan ka gudbo labadan habraac ee kala ah habraaca shirkadaha dhismaha iyo injineerada iyo habraaca ilaalinta dhismaha waxay labaduba khuseeyaan oo ay isugu tagayaan shirkadaha wax dhisa iyo bahda dhismaha cidda la rabo inay tayada ilaalisaan waa dhismaha cidda habraaca shirkadaha dhismaha ee habraacan shirkada dhismaha iyo injineerada ay khuseeyaan waa dhismaha waxaan saxayaa qoraal halkaa ku qoraa oo ahaa waxay hirgeli doonaan habraacyadani 2024 ma hirgelayaan maanta oo la shaaciyay ayay hirgelayaan laga bilaabo saacadda waa habraac la isticmaalayo waana sharci jira sideedabana shuruucdu mar hadday ka soo baxaan faafinta rasmiga ah ee garyaqaanka guud ama special gazette uu ku dhaco waxa weeye waa sharci jira oo la isticmaalayo dhaqan gal ah waaba sababta uu soo saaray habraacyadan kulli dhibaato jirtay ayaynu ku daweynaynaa dhibaatada dhismayaasha inooga timaadaana waa badan tahay qaran ahaan mid nafeed baa ka timaada
mid dhaqaale ahaan baa ka timaada mid macnawiyana ka timaada maantana halka kuma soo koobi karno laakiin waxaan doonayaa inaan ka xuso oo aan dhammaantiinba idin xusuusiyo dhammaan dhismayaasheedu horta waxay dafirayaan marka koowaad qayb dhan oo mujtamaca ka mid ah qaybtaasi waa tee waa dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada ah hadduu idinku jiro iminka nin naafa ah oo wheelchair wata oo hadalka loogu yeedho oo uu halkan imanayo soo in la soo qaado maaha ilaan u bixi kari maayeen waad aragtaa kaabadaana kama soo geli karo waxyaabaha ugu horeeya iyo xuquuqaadka ay daweynayaan habraacyadani waxaa ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba Axmed Khalid telefishinka Hon Cable Hargeysa